Bukan intan taruh Shaygedka habboon tada gumaysigu ku dunto maandadka dhulkiisa horseeda shaygedka habboon Kenya waa loo soo gala Sadiq Leyse soo dhawow ninkan iyadada u ahay aad buu ii siboob garaya thank you so much waa mahadsan tahay waxaan wadaa waa danguud noo dangaara waxaan wadaa waa midnimo Soomaaliyeed xabad wax ku noqon weyne gobol wax ku noqon weyne ahey gobolkeennaa ku dhacay ihidig lahu kaca waddankiina difaacda yacdaha cadowga yacdaha shisheeyaha yacdaha sokeeyuhu wuxuu rabaa ha isku sameeyo nimanka shisheeyaha u adeega annagaa u joogna warkooda bannaanka waaye bannaanka no way taas mandeeq haddii waraaba nuugayo xaggay ka godlan mayso mandeeq haddaan gobonnimada loo dhiman godlan mayso mandeeq ma godlanayso waxay u baahan tahay kacdoon shacab halaan bay baa lagu hayaa dhulkii dadkiina waa hurdaan ma garanayo waxa seexiyey Fardowsa in the dereley. Saadaqya in the dereley soo dhawaada soo yaaca wax muhiim aan ka hadlayaa dhibta waddanka taal iyo waxa wada iyo dayac yaalla iyo qayru mas'uulnimada
dadka mas-uuliyadda dadka ka ah baan maanta ka hadlaya dahabkii waa la dhameeye shidaalkii baa haray dahabkii dhammaa ilaa 2011 baa la daldalhaya dahab kuma harin waddanka gobol walba waa lagala baxay gobol walba fanaaniin hadal waa ka dhammaaday nin gabiya hadal waa ka dhammaaday way iska dhaga tireen mas-uuliyiintii waddanka Five minutes is enough, Sheikho. Sheikho, 5 minutes is enough. Okay. Waxaa kaloo meesha yaalla haddii ilaahay amarkeeda kuu leeyahay ilaahay hadduu idankeeda kuu leeyahay waxa weeye waxaan ka hadlaynaa maanta acuudu billaahi min ashaydaani rajiim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أخيارا وسلم تسليما كثيرا حسبنا الله ونعم وكيل حسبنا الله ونعم وكيل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن والرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أما بعد waxaanu maanta ka hadlaynaa dhowr qodob oo ku saabsan dhibaatada iyo barbaleemka iyo rubadgo'a waddankeennii rubadgo' baa ka socda rubadgo' waxa weeye dhan walba waa loo dhimanayaa dhan walba cadaalad darraa ka jidha dhan walba mataqaanaa kayru mas-uulnimaa ka muuqata dadkii mas-uuliyadda dadka u ballanqaaday kitaabaday marahayeenna waa baybal kitaabka islaamka ee ilaahay noo soo dejiyey ee quraankeenna furqaan yaa mahbaddeenna shaaficiya wax ku maamula iyo wax ka baqaya iyo wax haysta midna xukunka looma dhiibin waxa weeye nin walba jaantii uu haystay cagtuu marsh shacab waa baaba'ay hadda waxa waaye laba qodob baan ka hadlayaa qodobka u horeeyaa waxa waaye waxaan u hambalyaynayaa dowladdayada maxaan ku idhahdaa jamhuuriyadda soomaaliya ee uu hogaamiyo maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo waxaan ka hadlahayaa oo ugu hambalyaynayaa dowladdayada waxaan ugu hambalyaynayaa xukuumadda waxaan ugu hambalyaynayaa madaxweynaha waxaan ugu hambalyaynayaa ciidanka uu geeyey jubbaland xuduuddii jubbaland ee dadka reer jubbaland reer gadar lagu gumaaday ee xoolihii lagu gumaaday ee dadkii nolosha lagu kaxaysto la qafaashay ee mataqaana burburka iyo baaba'a naf iyo maalba ku dhacay iyo deegaanba ciidanka uu u geeyey oo gurmadka ugu geeyey inay difaacaan xuduudda iyo dadka iyo dunyada baaba'ahaya oo dhiig joojinta u baahan waan ugu hambalyaynayaa madaxweynaha yagu inuu amarkaas fuliyey inuu dadkiisa u naxariistay dalkiisa inuu difaacanayo madaxweynaha waxaa loo doortay dalka iyo dadkaba inuu difaaco oo badbaadiyo waa uu diray ciidankii waana ku faraxsannahay madaxweyne waxaan ku leenahay hambalyo noo soo noqo wax ciidan u dira xuduud wax ciidan dhaha war waddanka madaxayta dadka hala badbaadiyo wax yac ka dhaha cadowga soo weeraray waddanka adaaban ku aragnay ilaa 91 maxamed siyaad barraa u dambaysay waddan cadow laga difaaco dad
cadow laga difaaco amni iyo kala dambayn iyo horumar iyo nolol iyo naf maxamed siyaad barraa noogu dambaysay waan hoognay afarta dibir shanta qaaradood baanu ku dhigbaxaynaa shanta qaaradood baanu ku dhigbaxaynaa meel aan qof soomaaliyuhu ku xirayn meel aan qof soomaaliya lagu xabaalin meel aan qof soomaaliya lagu bahdilayn meel aan qof soomaaliyuhu ku dullaysnayn ma anu arag waxaa noo keenay dagaalkii sokeeye dowlad maxamed cabdullaahi farmaajo ka horraysana ma anu arag oo dadka isu soo aruurisa oo xabisyada ka soo fudha walow weli xabisyadii ay buuxaan oo meel walba wiilashayadii iyo gabdhahayagii ay dayacan yihiin wax kalyaha laga guro wax xabisyada lagu jirdilo wax iyagoo dhaawac oo maliilku ka daahiyo lasoo sawiraayo wax iyagoo la garaacayo qolof noqday qolof dadka qabuuraha ka soo baxa maxay ahayd wixii la oran jiray male waxaanu hadda rajaynaynaa waan rabbiga caalamiinka ka rajaynaynaa dadkaas iyo dalka hadhiinada ahaa 30 sano maxamed cabdullaahi farmaajo inuu badbaadsho intuu yimidna wax badan buu badbaadsho oo wax badan buu qabtay oo waxaana sheegi karin buu qabtay oo wax qorraxdaas qof sacabku celin karaa ma jiro ilaahay baa nale naftaan waa go'i xisaab baa ka dambaysa qabri baa nala dhigi ilaa 91 maxamed cabdullaahi farmaajaan aragnay qof leh waddanka anaa leh oo gaal kala shiri mahayo oo kala tashan mahayo taa kana cidna uma ogoli badiya biriba maba aanu arag ka hor tabar meelay geysaba waa harjadaya waxaan ku leenahay maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan ku leenahay maxaad taqaanaa jasaakumullahu khayra waa ku hambalyaynayna joog soona noqo nin kale uma rabno inta siyaasadda ku jira siyaasadda soomaaliya nimanka ku jira oo raba madaxweyne inay u tartamaan oo ku guulaystaan oo waddankan xukumaan mid aanu aamini karno iyo mid wadaninimo aanu ka dhedhaminay iyo mid noo naxariisanahaya inta aad aragteen oo niman isi soo kilkilahaya oo wada ku soo fashilmay xukuumadii ay qabteen waa ku soo fashilmeen mid kaliya maanta ammaanu soomaaliya u dhextaal ma jiro wax dhintiyo wax noolba ma jiro nin intaasoo kale noo sheegan kara male inuu na cuno oo xoolihii dhaco oo dadkii dhaco oo dhulkii gato oo dekadihii gato oo baddi gato oo gabdhihii gato maahane oo dullaal uu ka yahay waddankiisii maxamed cabdullaahi farmaajo wixii ka horreeyey dullaal bay ka ahaadeen waddankooda qalbi dhagax baa la dhiibaa la yiri qalbi dhagax ayaa dhiibay sambalojaa dhiibay sambaloje baa dhiibay ina farmaajo kama warqabin allihi ka alle nebigi ka maxamed magaci ka islaam saasaa la soo baara 3 sanaa la baarahaya baaristii waxa lagu soo hela sambaloje iyo dad isaga maaragtay xulufadiisa ah oo madaxweynaha lagu xumaynayay oo ina farmaajo lagu dhaleecaynayay oo shacabka loogu dirayay oo ummadda soomaaliyeed loogu dirayay buuba ahaaba mishinkaas wuxuu ahaa mishin maxamed cabdullaahi farmaajo maadaama shacabku jecel yahay laysaga horkeenayay oo lagu dhaleecaynayay laakiin iyagii bay la rugmatay sirmaqaba saabaabiya u cesha ilaa allah shaahid ilaahu rabbigayow qofka daacaddaa u hiil qaa'imkana ilaahu fadeexatu كشفات الفضيح كريد يا رب العالمين آمين يا رب العالمين قضب انت سهر دعيبة يا هاي قضب كان كهلا يوغر يا وحواي وحان كو براروجينا هيا ومدى الصوماليات إن أي إسكا قمتان عدو جودا أي هقامي نيان رقع قرندومسكا حراش ummadeed ah oo hogaaminayo dowladaha shisheeye oo ay ka mid tahay kenya qurunley iyo imaaraad labadaas annaga dhib nagu haya iyo wixii ka dambeeya behindigooda wixii ah oo daaha dabadiisa ayaga laftirkooda ka xukumahaya waa badan yihiin marakan haatana waxa ugu cadcad oo qaati billaahi ka taagannahay oo waddanka yaga ku soo heliilaya oo raba inay ilaa waqooyi ilaa kismaayo waqooyi dhinaca labada badoodba qabsadaan waxay rabaan inay qabsadaan gobolkan maxay tahay waqooyi galbeed iyo koonfur galbeed oo ah jubbaland
badda Kismaayo ilaa Kismaayo inay qabsadaan bay rabaan hadday soo gaaraana ilaa Baraawo oo weliba waxa important ay ugu tahay inay qabsadaan Saylac iyo Berbere iyo dhulkaas inay Ethiopia kala dagaalaan bay rabaan oo Somaliland qabsadaan Soomaali galbeed ay qabsadaan oo mataqaana halka ay Ethiopia kala dagaalaan waana xuluufo badan oo dad oo mataqaana is soo bahaystay waaye oo Soomaaliyana ka sugu soo duulay Ethiopiana inay u sii maraan Soomaaliya rabaan oo ay ka dhigtaan meel ay sii maraan oo wada ah waa Egypt iyo Yuhuudda iyo Saudi Arabia iyo Imaaraat afarta iyo gaal oo dhan oo daba socota oo ku gabanaysa iyagoo iska soo hormaris sheekada waan la fahmaynaa wadan istiraatiiji baan ku naalnaa badaha adduunka badaha ugu qaalisan ba annaga aan haysanaa Indiya Ocean badda cas iyo badda madow ba annaga nagu kulmaa aadan goldi baa la yiraahdaa meeshaas waa meesha Maraykan da adduunka ugu xoog badan meel u soo marow laayo ilaahay baana naga hayee dawlad naga haysa iyo ummad kale oo hadda darbiga aan ku tiirsanoo naga haysa ma jiro qaaligu basharka haya mar hore u habsan lahaa qaaligu basharka haya quwadda ilaahay buu ku maqan yahay quwadda ilaahay quwad Soomaaliyeed kuma maqna oo konton qabiil u firirtay oo konton dawladood oo konton calan oo konton tuug oo konton qaa'in wadan oo konton taraytar oo konton munaafaq oo konton wahaabiye ah oo wahaabiye bal la wareegtay wadankii oo dhan maca kuwa madaxda waa wahaabiye rabbiga khaaliqu basharka naga hayo ilaahay baana weligeed wakiil naga aha maantana isagaa naga ah berrina isagaa naga ah rabbi baana isu dhiibnay okay nimankaasoo u shaqaynahaya intaasoo shisheeye ah oo Kenya iyo Imaaraat iyo Egypt iyo Saudi Arabia hadda aanu shiishadu toos u saaran tahay waxaa ka taagan gobolka Puntland dhibaato aad iyo aad u baahsan oo dadkii ay la kulmayaan dil iyo dhac iyo kufsi iyo xabis iyo jirdil iyo hajuun iyo goodi iyo baqdin iyo argagax ay ku hayaan maamulka xunoo deni oo ku kufsaday Puntland iyo xaaraanta wasakhda ah oo garacyada ah oo uu keenay oo aaranjaan oo aan nahaynin oo dadka aan la dhalan oo diin aan haysan oo xeer celiyaa jirin oo cid mataqaanaa dabina ka jirin oo wax walba ay shacabkii kula dhaqmayaan wax walba oo bini aadan dhiba ama xun oo sharciga islaamka iyo sharciga gaaladaba mamnuuc ka ah ayay kula dhaqmayaan waxay kala dhaqmayaan iyagoo intaa ku haya oo intaasoo dhibaato ah ku haya Garowe ciidanka qabaliga ah oo la adeegsanayo ciidanka yarka ah ee reer Puntland ee qabaa'iliga ah ee qabiilka ku dhisan ayaa loo adeegsanayaa shacabkii dhibaatooyin shaac baxay oo shacabka iyo xoolahooda sharci darro lagu bannaystay shacabkii iyo xoolahoodiiba sharci darra lagu bannaystay cid looga baqayaa ma jirto waa burcad badeed baa la oran jireen burcad Puntland baa ka dhisan xukuumad la dhaho burcad Puntland baa ka dhisan magaalada Garowe oo caasimadda reer Puntland xukunka fadhiya waa burcad Puntland soo garan maysiin wax ay u aabadayahayaan haba yaraatee ma jiro wax la xeerinaya haba yaraatee ma jiro dumar waa baaba'ay ninkii dumar ahaa rag weligiisu babala u joog rag weligiisu dhibasho u joog rag weligiisu dhaawac u joog rag weligiisu xabis u joog gabdha la xirahayo gabdha inta la kubsado duurka lagu soo dilahayo gabdha la jirdilahayo baanada lala dhacahayo oo lala dhacahayo mataqaana qoriga dabadiisa oo guryahooda loogu gelayo oo lagu dilayo Facebook baad ka taageedeen maxamed cabdullaahi farmaajo xukunkiisa maxamed cabdullaahi farmaajo xukunka male yaa animal aranjan iyo dani maxamed cabdullaahi farmaajo male xukunku waa qaran Soomaaliyeed ee goboladiisu soo gaarin dhaha
ha inkirinine dowladda puntland qaranka puntland madaxweynaha puntland saddexduba waa fey madaxweynuhu waa maayar tuuga oo ilaahay iyo shacabkiiba been u sheegay oo kitaabku maray ka been sheegay maamulkuna waa maamul goboleed isaguna waa maayar war ma garanaysaa qarankii xamar buu fadhiyaa dowladdii xamar bay fadhidaa madaxweynihii xamar buu fadhidaa inta maayara madaxweyne looguma yeeri karo waa mamnuuc sharciga dastuurka ahay jebiyeen dadka ugu dhawaaqahaya axmed ninka la dhaho siciidani iyo qoorqoor iyo lafgareen iyo waare iyo axmed madoobe qalbi madoobe shaydaanka qalbi madoobe dadka ugu dhawaaqaya madaxweyne sharcigii diinta islaamkana waa jebiyeen sharcigii dastuurka noo dhignaana waa jebiyeen sharca adduunka loobuu leeyahay adduunku loobuu leeyahay madaxweyne maayar adduunka wax u yaqaan ma jiraan annagana sharaftii bay nooga cayaareen diintii bay nooga cayaareen sumcaddayadii iyo sharaftayadii bay ku cayaareen ma garanaysaa mid wiil yara inta isla soo mikrofon isla soo gilgila wuxuu leeyahay dowladda qaranka ah ee puntland madaxweynaheeda oo jaajuusnimo ugu maqnaa magaalada mataqaana waddanka dubai ayaa hadda diyaaradda ka soo degahaya jidka labadiisa dhigana ha la buuxiyo jidka sidii maalin ciidan la tukanayo aad maayar xuna oo tuug ah oo kabihiisa uraya qoraxda loo istaajinaya muwaadiniin cashuurtooda xataa uu cuno oo uusan wax ka siin shacabka businesskoodiina uu dhacay tuuggaas in la dhaho labada derbi istaaga laamiga labadiisa dhina calimo qoya ku soo dhowaa tuugow soo dhowow waa ku jecelahay tuugow soo dhowow may dhahaan calmiin madaxweynow soo dhowow intay leeyihin waa dad bahdilan waa dad canyuuranti ah waa dad dugaag noqday dugaag yaa bahdilay tuug iyaga ka dhashaa bahdila gaala uma imaan ajanabi uma imaan shisheeya uma imaan tuug xun oo canyuuranti ah oo iyaga ka dhashay oon innaba u naxayn oon innaba markii ku awrkacsado aan qabiil la lahayn ya oon xeer la lahayn oon diin iyo diin islaam iyo sharci islaam iyo sharci gaala meelna aan uga xishoonay dowlad uu uga baqana aana jirin oo awood leh yay leeyihiin soo dhowow muxuu soo dhowaada waa tuug shanta kabco dhugooye kabcadii ilaahay buu ka furta kitaab iyo diin iyo sunnana ma yaqaan waa nimanka taraytarada ah ee dowlad goboleedyada xukuma ee mataqaanaa ee mucaaradka la baxay anigu se aan u aqaan maafiyada muxuu sameeyey baabah reer puntland wax kama harin waxaa la soo kaxaystay oo la keensaday warshad samaynaysa black money bay samaynaysaa black money waxa amerikaanku u yaqaan lacagta dollarka u eg oo foojeriga ah oo fayga ah black money bay u yaqaanaa waa hore baa america ay ka soo baxday waa la suuriyey niman burcadahoo america dhexdooda ah samaysan jiro dowladihii hore baa suuriyey ninkii lagu helana waa la toogan jira garoway ka furantaa iyo boosaaso warshadaas lacagtayadii halkaasay ku qaymo dhacday waxna ayna ku goynayn sixir bararku halkaasuu ka yimi wuxuu kaloo ka yimi wax allaaliyo wixii business joogay puntland wixii u soo degayey 3 jeer baa lagu kordhiyey cashuurtii ha lagu kordhiyey meelihii muhiimka ahaa oo waaweynaa oo businesska reer puntland lahaayeen dekadii iska badaa iyadu 5 sano ay maqan tahay baa haddana arinjan baa la wareegay wixii adigu shaariga ahaa baa business lagu arkaa puntland shaarigiina dhabal baa laga dhigay lacagtii lagu keenay oo lagu soo gaday iyo canshuurtii badata nin waliba gurigiisa bugaajo la fariisto loogama harina hajuun iyo dil iyo kufsi iyo mataxabis iyo jirdil baa loogu dara warba waxoodii hal la qaatay hadday nabadgelyo heli lahaayeen oo ogoobay maciil baad qabi lahay ya cadaabkiiba ka soo isbaxay meeshaas ilaahaygii subxaanahu wa tacaala ee awoodda iyo quwadda lahaa baanu u weydiisanaynaa inuu deni iyo aranjan ka qabto puntland waa la sii daayaha waxaa la yidhi
waa la sii daayaha dadka maya halkan baa joogaa garowa ka dhisan okay oo adeegsanaya ciidanka qabaa'ilka een sharciga lahayn een waxba dhowranayn ee mushaarka aan qaadan ciidanku ma xuma war ciidanku ma xuma war ciidanka anigu wax ka sheegi mayo war waa cadaaban yihiin war iyagii oon mushaar qaadan baa laleeyahay shacabkiina ka doonta waxaad cuntaa shacabkii ma asxaan baa looga nin baa haba asxaan kuu gelay waar ciidanka madaxtooyada jooga ha laga bedelo waddanka war ciidanka madaxtooyada jooga ha lagu mudahara war dhagaxa lagaala daalo war shacibku ha ku mudahara ciidanka madaxtooyada jooga war shalay burtinlay dad ku laayeen inta u weeraray ayagoo qabyaalad ku laynaya dadka oo qaarna dhaawaceen qaarna la xabaaro waa madaxtooyada nimanka joogo dani amarka ka qaata yaa shalayna daraadna waa la ogaayo wiilkii madaxtooyada joogay gaalkacyo waa tii assassinationka lagu dilayo waxa uu dani qasahayo markuu ogaaday oo uu mataqaanaa ogaaday dani inuu waddankii xaraashahayo oo uu ogaaday dani inuu waddankii fasahaadinayo oo uu ogaaday dani inuu waddankii cadow gacanta u gelinayo yaa ilaa xogagaal buu u ahaaye oo gacanyaro u ahaaye buu wuxuu yidhi intuusan ku sheegin dila wiilkii mataqaanaa madaxtooyada lagu dilay oo ciidamada ahaa oo gaalkacyo lagu dilay dee magaciisii ba iloobayay waa cismaan maxamuud wiilku waa la dilay maxaa lagu dilay sir buu ogaan lahaa sir uu ogaa waa laga baqay inuu dilo kuwaan hadda uu adeegsanayo qabiilka baabi'inayo qabiilka uu ku his qaba leeyahana berri buu dilayaa ilaa waa gaal matacab xiran oo diinta hunduuga haysta ilaahay dambi iga raacin maayo so inta qofka xun oo diinta aan haysano ku sifoobay baa dani iyo aaranjaan ku sifoobeen ajar iyo abaal baan alle uga raadsanayaa inaan wax ka sheego ummadda u sheego oo fashiliyo nooca yihiinna u tilmaamo waayo nooca yihiin waa nooca munaafaqa aan diinta haysan dadka annaga gaala la joogna oo meel walba gaala joogtaa yaa dadka gaalada ah oo adduunka joogaahu cadaalad bay sameeyaan qof dhifo tuugana waa la xiraa haddii la helo alambaqaa laga tuura cadaalad bay sameeyaan shacabkooda cadaalad bay u sameeyaan canshuurtooda waa ku celiyaan gaal baa laleeyahy gaal dani baa ka daran oo ka liita kuwa timaha caabud oo kale waa iyo wixii la madade isaga iyo wixii la mida waxaa la yidhi xoolahooda ayada oo haweenka lagu dilo oo lagu dhaco oo lagu kufsado oo lagu jirdilo oo lagu hajuumo oy dhammaantood wixii awood lahaa ka carareen oo xamar isku shubeen dhallinyaradii waa baxday horta wiil iyo gabadh xamar bay isku shubeen hameenkii hadda arbacadii ina dhaaftay 70 baa xamar ka degtay reer puntland oo dhallinyaro cir iyo dhul meeshay soo mareen bal sheeg adigu miyaad garanaysaa meeshay soo mareen lafahoodii bay la carareen xaaxdii baa qabatay assassination kufsi jirdil xabis intaasay u dhexeeyaan oo dayaa joogahaya meela nabad ool qaraxoodii xamar baa loo qaataa xamar ha lagu qarxiyo meeshaad ku dhaminaysid baa meesha kulan kuu dhaam inveja xamar cid hajuumaysa male iyo cid u dhaaranaysa male shacweynahaasay ka mid yihiinoo wixii ku dhaca ay la qaybsanayaan laakiin meel maalin walba lasoo wacyo le facebook baad ka taageedhay farmaajo facebook baad ka taageedhay dowladda federaal oo habeen guri ku hoyanayn oo iskuul ku baxsanayn oo bannaan ku baxsanayn oo suuq ka baxsanayn oo qof baxsanaya aan la arag okay jirdilka iyo dilka tooska ah oo aan lala gabanayn oo dadka hortiisa lagu samaynayo waxaa suubinaya waa ciidamada madaxtooyada iyo booliska oo ka amar qaata deni intaa kaliyu mushaar siiya ciidamadii kaleo caadiga ahayo waddanka difaaci jiro cadowga ka qaban jiray qolo walba waxay aaday askar walba waxay aaday qabiilkii ugu dambeeyey waa dhulbahanto haddeer waa ayagii wiigii dhoweyd baxay oo teknikadoodii iyo adduunkoodii iyo ciidankoodii ayagoo dhowr boqolo baxay oo xagga iska dhiibay puntland iska dhiibay somaliland sababtaa meesha waa ku baktiyeen waxaa u dheer
cagajuglaynta iyo yasidda iyo goodiga iyo xabiska dani iyo aaranjaan ay ku samaynayaan warsangali waa baxay dhulbahanta waa baxay leelkasa waa baxay reer bicdiyaan waa baxay reer maxamuud waa baxay carab saalax waa baxday dashiishla waa baxay cali saleemaan waa baxay oo yaa u haray xaniyaha allagoo yuu xukumayaa yaa cumar iyo cismaan iyo ciisead xukumaysaa laakiin cumar iyo cismaan iyo ciise inta kula shaqaysa unbaad xukumi shacab kuma rabo cid ku rabta ma leh xukunka dani cid rabta ma leh aaranjaan waa la nacay aaranjaan waa la nacay shacabkii buu yidhi habaarka 24 saac ku socdana rabbiga caalamiinka ah waa ku rido waxa weeye markaa ciidanka madaxtooyada ee ka amar qaata maayarka kufsaday xukuumad ku sheegta garowe ayada oo ay ciidan madaxtooyada ka socdaa danina uu amar ku siiyey in shacabka qofkii hadla dadka waaweyn hadday siyaasad ka hadlaan salaanta laga toogto dadka dhallinyarada ana la isugu daro dil iyo ciqaab iyo xabis uu amar ku bixiyey sida nagu soo gaaray khabaarku dhibaatada shacabka reer puntland dhan walba ka haysata waxa weeye markaa dadka reer puntland inay tashadaan oo iska dulqaadaan waxa kan hawayda oo dulliga oo yeyda oo waxay dhaafayaan aan la arag war yeydu intay xoolaha cunto oo hilibka ka cunto bay lafaha ka tagtaa hilib iyo laf waxay dhaafayaan ma laha waxa weeye marka ilaahay quraankiisa iyo diintiisaan ku maqlay culimmadu sheegaysa shacabku markuu mujrim noqdo markuu diinta ka tago markuu sunnaha ka tago markay iscollaystaan markay isxastaan markay isdhacaan markayna isxushmayn markayna walaaltinimo iyo islaamnimo isu jeclaan isnabcaadaan qoloba qolada kala nabcaato waxaa loo soo diraa mujrim dani oo kale iyo aaranjaan baa loo soo diraa dadkaanu marka iyagaa ka dheeraaday naxariistii rabbi markay shacabkii ka dheeraaday mujrim iyo mujrimiin uu wato oo quwad leh oo cadaadisa oo cabiidisa baa loo soo dirahaya marka shacabka ruuxiisu isagaa gardarada leh sababtoo may ku mudaharaadaan may iska celiyaan maalin walba halalaaye ha ku mudaharaadaan dhibaatada ka taagan soomaaliya gobolka kaliya kama taagna laakiin soomaaliya oo dhan bay ka taaganta awal gobolku inta waa dhaami jiray dani ka hor gobolku waa noolaa oo caaqibuu lahaa maanta laakiin meel u fayow bad iyo biri dad iyo dunyo waa dagal madow wey mar dhow waxaa soo socota dadka guryihiisa ay leeyihiin oo subarloogada u haystaan inay aaranjaan la wareegaan wax u haray oo kale male waxaa dhacday hadday dadka xoolahoodii dhaceen oo dadka xoolahoodii iyagu dhacayaan oo canshuurtii dhacayaan oo dadkii shacabka ahaa ay mataqaanaa waxay ugu qabanayaan alla arag isbitaal uguma dhisayaan war yaa islaam war amuurtu xaggee ka socota isbitaal uguma dhisayaan iskuul uguma dhisayaan oo ugama baxshaanba iyagaa la baxa iskuulkooda canshuurtoodu meelay gasha lama yaqaan jid looguma dhiso ceelo looguma dhiso horumar dhaqaale looguma dhiso buundooyinka iyo meelaha go'on oo biriijyada oo roobabkii gooyey 5 sano ka hor looguma dhiso 24 saacna 3 jibbaar iyadoo baa laga gurayaa
qofkii diidana taleefon baa loo soo diraya waa la hooja jubaya meeshaa lagala wareega waa habar yaanya gadays iyo mid sinsin gadays iyo mid mataqaanaa gadaysa digir iyo bahalkii bariis gadays oo bannaanka ama balbalaxun laamiga u taal ama qudaar ha gado ama qashankaa kale ha gado mid huudhay gadays silicaas iyagoo wax ku korinhaya oo wax ku biilanhaya baa laleeyahay canshuurtu waa dhabal jibbaar hal baan bixin karaa ama labaan bixin karaa may haddaadan bixin beris wax meesha fariisan mayse cagaf cagaf baan marinaynaa adiga iyo gaariyoolahaaga xuno aad wax ku gadato ama miiska xuno bannaanka ku yaal dukaan dad leba ma aha dad shirkada le ma aha dad hoolal waaweyn le ma aha war ma garanaysaa dhibaatadaas dadkii qabay oo halkaa qabay waxaa ku filaan lahayd haddii ay dowlad xataa madaxweyne bahalkii maayar daacada heli lahaayeen calaa day calaa hal maalin halkii maalin buuraha galgala iyo buuraha calmadow waxaa laga guraa dahabka laga guraaho halkii maalin waa 10 milyan halkii maalin waa 10 milyan buuraha calmadow iyo buuraha galgala iyo buurahaas ku xeersan buurihii xargaga iyo dhulka ku xeersano ilaa iyo dhulkaas warsangeligu u badan yahay iyo dhulbaantuu dhanku u badan yahay dhanka habar bahalkii ay jeegaantu daldalata maahae dhankan puntland wixii soo xiga niman calooshooda u shaqaystayaal ah oo black water la dhaho oo imaaraad u shaqeeya oo adduunkii oo dhan inta laga soo cayriyey imaaraad dabada soo gashatoy tiri ilaa iyadaa tuuga ah dowladda imaaraadoo dhisan waa dowlad burcada oo tuuga ah low adduunka qabtaa ma jiro waxa weeye waxay ku shaqaysaa sharci darray ku shaqaysaa adduunka dhan wixii sharci darre ahna iyaday degan yihiin oo caalamkao dhan laga soo masaafuriyey iyaday degan yihiin oo calooshooda u shaqaystayaalka ah oo burcadka ah burcad ayu nooc ah dubay bay degan yihiin nimankaas iyo niman calooshooda u shaqaystayaalahoo south africa oo iyagana inta south africa iska soo cayrisay muxuu ahaaye inta fadhiya dubay fadhiya labadaas shirkadood yaa farole wuxuu soo kireeyey waagii waddanka qabsaday 80 milyan 80 kun oo dollar buu ka qaata ilaa hadda markuu isagu tegey kii ku xigay oo ina cabdiweli caligaas waa fadhiyeenoo waa gurahayeenoo yacma u oran isagu wuxuu ka qaatay war uma hayo cabdiweli caligaas dahabkaa lacagtu ka qaatay war uma hayo hal dambe baan anigu cabdiweli caligaas wax xaqiiq ah aan ku haya dekeddaasoo 30 sano uu kireey taasaana dhibaato noogu filan taasaaba dhibaato noogu filan dahabkii odagu soo kireeyey oo 80 kun ka qaatay oo dollar hadda wuxuu intii dani joogay aaranjan waxay ka qaataan 1 milyan 1 milyan bil maaha waa sanadkii 1 milyan bay ka qaataan dahabkooda waa ka qatan yihiin xaniyaha allagoo may iyagu inta soo gurtaan dhulkooday leeyihiin beec geystaan oo caalamka ilaahay u beec geystaan ay dubay bay geyn caalamka ilaahay bay u beec geystaan bilaayiin malaayiin bay ka heli lahayd ya war wuxuu dhiig la'aa toddobada cadaabood ilaahay isu kiin mari toddobada cadaabood ilaahay isu kiin mari iyo midda adduunka tan adduunka iyo toddobada aakhire lagu sheego cadaabaha allah ah rabbigay ha isu mariyo dani iyo aaranjan maamulka maanta puntland ka dhisay ragga ka mas-uulka ah oo intaasoo dhibaataa noo geynayo oo dahabkayagii gacanta ka bixiyey oo cadow shisheeyaa u dhiibay oo dadkayagii ka baaba'ay toddobada cadaabood oo aakhiro iyo tii adduunka oo 8 ku ah rabbigay ha idinku sallado ilaa waa shaqaysateen ana ma idin dulmiye waxaa laga gurahayaa oo hal hamayn dahabkii laga keenay calmadow oo boosaaso lagu dhilahayey oo lagu dhaqayey oo lagu fidinayey baan idin tusahayaa hadda
وكاسا رير بدلانو هوغو أبا وكا دهب كيني وكا وإسنينتي هدر إنا كتكتي وكا ورموشيدان انتو لقلقك يهي ورموشيدان انتو لقلقك يهي ورداب كي ما ركتان رير بدلانو هوغو أبا ورسكا قبطننك ورموشيدان وكا وكا انت ستر اللي وكا رير بدلانو سيبو او صوبا وحاسو ده الذي بعمارة لسي مركزات قبيل كنت غيريسان موجودان تلاياي دام كيجي والله قاطع إمارات بعد ما يصير موجودان وهالمال وها انت الله صقرة ويلا ياريارة وذهب كمان اكتسي فيها ورير بوساسا بلا يري سفاية وميان دمان كرايا تلاياي ورنا ما كارن كان اسكا قبطة ورارن كان وكا ذهب كيني رير بدلانو تعبكين با ورموشيدان ذهب كيني بورها علمذو ما عبد الله قرها يا قلقلة ولا قدمي وكا ساوث افريكا يا امارات بلاك ووتر بادل ضلها يا ورموشيدان الله رير بدلانو بدي قبل ايدين كقاضي ضمير كيما كدنتي وكا ارنشان يا دني يا ارنشان وكا وحسو ذهب الله دلدلها يا ورموشيدان سيبو صوبا قبيالة إلهي جهنم إذن كوجي قبيالة إلهي جهنم إذن كوجي وقبيالة واحد دائما كان الله دلدل يا دائما باكوشرة وكا دائما باكوشرة موجودان ورموجودان وحلقها لي نجح عن لا أقوم وحيي وأن ذهب هاي هي دائما هي الذهب كي صدح ذا نوع بالغها dhinaca shishe waxa ka fagta muusabixi dhinaca sokana waxa ka fagta dani shacabkiina waa baaba'ay gaajo u baaba'ay waa qaxeeno jigjiga iyo xamar bay u qaxeen shacabkii gobollada deganaa aaranjaanow ilaahay ummadda idinka qabay dani iyo aaranjaan ilaahay ummadda ha ka qabto ilaahayga qufuur raxiimka ee casaawa wajalka ee cirka dhiso dhulka taagay ee addoommadan abuurtay mujrimiinta addoommada laftirkooda mujrimiina shacabka laftirkiisa dad xun ah oo munaafiqiin ah oo qabyaalad ilaah ka dhigtay oo diin ka dhigtay oo sunnihii nebiga ka dhigtay sababtaa mujrimiinta looma dhiibeen marka shacabow dulligaas ku dhinta kiinii dhintaana waa dakhalo jahannaba wey waayo dulli baad iska qaadi weyde xaqiinni baad raadsan weyde war intaasaa tira la egtiina ma 40 nin ee aaranjaan iyo dani baa idinka adag war hal laydin laayo 100 qof ka badan dhiman mayso laakiin waa xoroobaysaa iska dulqaada dulliga dulli qofkii doorta ilaahay waa dulleeyaa oo raalli ku noqda dulli alla waa dulleeyaa waxaan uga baxayaa gobolka rogmaday ee gobolkiisu dhacay aan leeyahay ilaahu faraj u fur soomaaliya oo dhan ilaahu faraj u fur gobol kasta oo dhiban ilaahu faraj u fur soomaali waa dhibantay alla faraja u furo soomaali meel walba waa dhibanta meel maaragtay igu soo orod taallo iyo meel nasteexa taallo iyo meel nabad iyo nolol taallo ma jidho war ma jidho qodobka labaad aan ka hadlaya waxa weeye qodobka labaad oo aan ka hadlahayo waxa weeye mustaye axmedey qodobka saddexaad oo aan ka hadlaya waxa weeye qodobka labaad oo aan ka hadlaya waxa weeye shacabka la qalanayo oo gobol walba lagu qalanayo oo gobol walba lagu kufsanayo saacahii hadda aan joogno waxay ugu daran tahay oo meeshii u dambaysay ay maraysaa magaaladii muqdisho oo xukuumaddii ka dhisanta oo madaxweynihii joogo oo ra'iisul wasaarihii joogo kan hadda ku eedayn mayno
maxamed xuseen rooble kuma eemayno laakiin saacadday kursiga uu ku fariistay oo baarlamaanku ansixiyey oo kursiga uu tegey wixii ka dambeeya waa lagula xisaabtana waana lagu eedi karaa rooble marka kuma jiro hooggii hore kuma jirin waxaa iska lahaa xasan khayraa iska lahaa ma garanaysa waa dayacan yaha waddanku waa dayacan yaha dadku waa dayacan yaha ciyaalki naag weyn oo shanta oo dhashay baa shalaa laga qaatay xamar awal carruurtaa la guran jira maabkaas iyo hawshaas dadka wada oo ajanabi leh oo dad caddaana leh oo qaaradaha adduunka ka yimid oo afrikaan leh oo kenya ugu badan tahay oo etoobiyaan leh oo soomaali leh waa shirkad dhan nairobi iyo addis ababa bay ku leedahay xarumaha ugu waaweyn oo laga sii dhoofiyo markab duleedka yaalla ka xamarna waa lagu sii kaydiyaayoo dadka inta lagu qalo baa badda lagu daadiyaa qaar xalanaa lagu qalaa qaar xaafadda cabdicasiis baa lagu qalaa laakiin xaafadda cabdicasiis iyo xamarweyne iyo hodan saddexdaa waa lagu kaydiyaa waa lagu soo aruuriyaa waxaa laga soo aruuriyaa ilaa nfd ilaa ogaadenya ilaa jabuuti ilaa somaliland ilaa puntland ilaa galmudug ilaa somali koonfur ilaa jubbaland oo dhan ilaa iyo gobolka cadale magaciisa ma aqaana cadale iyo agagaarkeeda ilaa gobollada dhexe ilaa hiiraan ilaa meel aan laga soo gurin ma jiraan waagii hore etoobiya iyo kenya loo daldali jiray xaquuqul insaankii baa ku ogaaday labadaa meelood kenya nairobi iyo addis ababa xaquuqul insaankii qoladii ahayd yaa ku ogaatay oo arrintii ogaatay waa soo carareen oo waxay dhaheen intayna idin fashilin oo dowladahaas sharciga lahu idin xirin soomaaliyaan dowlad iyo sharci ka jirina aada soomaaliya isku soo fur hadda xarunta ugu weyn xamar bay ka dhisantay xalanana waa lagu qalaa markabkana waa lagu qalaa cabdicasiis iyo xamarweyne iyo hodanna waa lagu aruushaa wax allaaliya wixii ciyaal baraka ahaa baa la shaqo geliyoo layidhi soo gura carruurta soo gura markaasa carruurtii waxaad arkaysaa ari bahal galay carruurtii oo yaacaysa iyo dhallinyaro ilma adeeradooda walaalahooda cayrsanaya oo saa isu baxsanaya waddanka waxaa ka dilaacay in dadka lagu qasho bareero maalin cad barqadii yaa laamiga dadkii lagu boobahaya oo lagu qabqabsanaya oo suuf cadoo sunu ku jirdho sanka loo saaraya shacabkiiyo u jeeda ciidankiiyo u jeeda oo bikiyaara shacabkii markay dagaalaan oo dabcaan inay iska dhiciyaan oy qofkii la diriraan boolis baa soo ordaya waa boolis wiida ah oo cunuga daba socday oo ninkan cunuga xadaya ama naagta xadaysa la socda inuu badbaadiyo oo dadka ka baasabaaseeyuu rabaa boolisku waa la socda carruurta wuu la hadaya stationkaa la geynayaa waxaa la dilayaa waxaa ganax lagu dhifanaya qofka carruurtiisa la xaday oo ka ceshaday hadda maanta naag aan ka fiirinaynay aan ka arkaynay meesha tan oo xamar naagtaas saddexda cunug dhashay oo la xaday maahane waxaa jidha naag kalaa jidha oo cunugeedii inta kula qabsatay oo ku mintiday oo kula dagaashay ayaroo gimina waa kana boodheeri baa soo geliyey boodheeri baan idinka tusaaya aniga xamar waxa iga soo diraan waayey boodheeri meeshiisaa idinka tusaaya nimankoo hadlaayo si bareer ah waxay noo weydiiseen lacag gaarayso $5,000 iyadii baa la xiday naagti tuugada hayna waa lasii daayay qiimaha yar inay keliya kala baxdo qalato shabakada dadka ka u shaqaynaysa $5,000 dahabshiil baa ka shaqaysa midda kaleo maxay ahayd waxaa ka shaqaysa kambaniga kaleo weyn ii keena magaciisii hormuud baa ka shaqaysa dahabshiil baa ka shaqaysa businesskaa ka shaqeeya
fadlan waxaan kaa codsanayaa haddii aad ku xidhnay janaalka inaad sabskaraib kusaatid furaga ableeg soo noqotay qofka ugu horreeya la socda iftiiminta xaqiiqooyinkeeda arrimaha bulshada haddii aad horey loola joogtana waxaan kaa codsanayaa barnaamij waxaa ka shaqeeya wax allaaliya waxa xamar ka shaqeeya ama dawlad ha u shaqeeyaan ama business ha ahaadaan waxa weeye shirkadaas dadka lagu qalanayo waa lagu wada jiraa businesska ku jira waxaa ku jira ciidanka ku jira ninka xukuma muxuu ahayeeto ninka xukuma asluubta waa ku jira booliiska kan xukuma waa ku jira maxaa ahayeeto dawladda hoose waa ku jiraan 14 degmo ee xamar nimanka haysta oo guddoomiyayaasha ka ah waa ku jiraan isteeshimada kuwa xukuma waa ku jiraan businessku waa ku jiraan shirkadan waa shirkad weyn waa ceel la helay ceel batroola oo la helay bay noqotay dadkii dhallinyarada ahaa iyo ciyaalkii saqiirka ahaa oo yaryaraa oo lagu boobahayo meel walba xamarna xarun ay too lagu soo aruurinayo warshadii ay ku taallo laga sii dhoofinayo qaar xalana lagu qalayo qaarna markabka badda kor rooganayo dawladdii waa joogta madaxweynihii baa jooga ra'iisul wasaarihii hadduu yimid cumar finish baa jooga janankii booliiskaa jooga kii asluubtaa jooga haye yaa maqan awal baan isirro waxba laga sugaynayo culuma ma jidho culumaduna waa wahaabiyo isiraduna laaluush bayba ka qaadanayaan dadka keliyihiisa laaluush bay ka qaataan laaluush guryahoodaa loogu geeya cumar finish gurigiisaa loogu geeya madaxweynuhu waa inuu ruqseeyo jananka booliiska iyo jananka asluubta iyo ninka la dhaho cumar finish ha la ruqseeyo dadkii oo la daldalahayayna dhag jala ku siinay bal gabadhan hadda wiilku sheegahayo bal ila daawada lama aragtan iyo lama maqashan riyaa ilaahay garanayo islaama عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan jecelnahay inaan dadweynaha Soomaaliyeed intii muslim inaan la wadaagno arrin yar oo muruga oo ku soo kordhay xaafad furayaasha la yiraahdo alkimiin ayaa suuqoodu waxa ka dhacay aad iyo aad murug u leh gabar yar oo guriga banaankeeda taagneed ayaa naag inta soo degatay qabsatay gacanta ka qabsatay markay gacanta ka qabsatay gabadhii ay qeylisay guriga ku carartay hooyadeed oo hadda si ay dhiido gabadha war naga daaday adiguna ha lagu xirinay Soomaaliyeed commentiga waxay ku soo qortay boodhariyo xaafadda aan deganahay qisan noocaasa baa ka dhacday gabadhii hooyadeed waxa weeye ilmihii laxad iyo hooyadeed markay naagtii ku qabsatana ayadii baa la xidhay wallaahi 4 cisho ka hor bay commenti gabadhaasi ugu soo qortay waa maanta hayaa noo furdee bahalka cajiib ku xirno samiire leeyahay oo ninkan uu dhalay ayaa isqabsaday meesha buuqa ka dhacay buuqii waxa la isku gudbiyay saldhigga degmada Wardhiigley saldhigii wuxuu yiri CID islaade CID markii la geeyay maalintii la geeyay balaba CID bay ka timi ilaa hadda waxay ku xiran tahay 7 habeen waay waxa la leeyahay waxay ku xiran tahay sharciya ma naqaano waxa la leeyahay lagu haysto ma fahmi karno hadduu xaq ka jiro meesha xakamaba jiro maqaayada CID da wasida dabeecad u leedahay waa kala gabadha abeed sida hore ugu soo sheegay gabadhii yareed ee la xadayay hooyadeed oo maqashay qaylada gabadheeda ayaa naagtii ilmihii jiidanayso ku soo baxday deedna labadii dumar xaafooda la istaray waa la isdagaalay dacwad baaba loo soo gudbiyo isla baxoo waxaa tagtaan laanta muqresaayay saldhigga Wardhiigley baa diiday si ay dhiida xaaladda u gudubtay gabadhii baaba la xidhay waxaa yidhi gabadhan baa dishay dhibaataa gaarsiisay taa macnaheedu maaha say ay dhiida oo dhan inay xun tahay laakiin waxaan idiin sheegayaa si ay dhiida iyo booliska iyo ganacsatada kuwa culimada sheegta cid waliba shaar allaaliya shaarkii ku qaraaban kara waxaa u maqaala hadda gabadhii soo daray laakiin waxaa lagu xukumay waa kaa boodheri sheegay indhihiinna maxaad aragtaa waxa aan ka qaylinayna waa waxaas bal ka waran boodheri baa idiin sheegay gabadheeda ka dhigatay ee isku soo boodo dabacday gabadhii xoog inay uga qaadato oo ay kula diridhay oo ay ka dhigatay baa booliiskii inta kaceeyey ee CID da u gudbiyo 5 kun lagu soo xukuma tii gabadha boobaysana waa la sii daayay waa maxay marka dawladda ka jidha xamar maxay tahay madaxweynaha waxa ka codsanaya ninka booliiska haysta
kan haysta asluubta cumar finish degmooyinka 15 gobolba kuwa haysta 15 degmo in ruqsad loogu jiido intaan woodkaba la gaarin intaana dhaafi maxamed cabdullaahi farmaajo intaasna dhaafi ciyaalka ha la hambeeyo ciyaal waa dhammaaday ma hadda naagihii hadda carruurta dhalaa loo soo dhigtay 4 mid dhashay baa shala la qaata 4 mid dhashay baa la qaata marka naag oo mooto kasoo dhigto bajaada qabsatay marka naagta markii dadku isku soo baxeen marka hooyada ay garaacday marka xoogaa gacanaa dhaawaca ka gaaray marka qolada oo laantaan ugu soo baxday marka qolada laantaan ugu soo baxday saldhigaana la geeyey CID-daana la geeyey CID ilaa hadda gabadhii 6 maalmood ay ku xiran tahay iska dawareeg iyo balaayan ugu wadaan maxaa loo xiraya gabadheedii biyaaro horar ka dhigan dhurwaa bay gabadheedii ka dhigatay dhurwaa see loo xiri karaa ma sharci baa meesha yaal marka waa qaataya qaato qof walba wuxuu rabo samaynaya qofkii xoog leh qofkii lacag leh qofkii qori haysta baa maanta nool masaakiintii waa u dhammaatay dowladda hoosteedii baa waxaa ka dhacaya xukuumaddii baa dhisan madaxweynihii baa jooga ra'iisul wasaarihii baa jooga baarlamaankii baa jooga ciidankii baa jooga generaaladii baa jooga waxaa jooga guddoomiyihii gobolka banaadir iyo intaasoo malyanoo ka hoosaysa okay shacabka marka yay xukumaan iyagu haddayna shacab xukumin yay xukumaan dowladda war dowladdu maxaan ku taageernaa oo dowladda maxaan ku sibood garaynaa oo dowladda maxaan ugu ducaynaa oo dowladda maxaan ka shinsannaa ilaa dowlad haddaad leedahay waa inaad dowladdaada shinsato oo aad sugto oo aad mataqaana qalbiga gashato inaad dowlad leedahay oo ku kalsoonaato oo maxaan ku kalsoonaana shacabkii iyo dadkii iyo awlaaddii baa hoostooda lagala baxa gabadha hanaa la dhaho hanaa abukar waxay bilowday inay carruur ka gaddo soomaaliya horta ayadu 2007kii bay gaalowday 2007kii bay gaalowday 2008kii bay waxay bilowday carruurta soomaaliyeed inay ka gurato soomaaliya gabadhaasu carruurta ma kaxayso oo gaalo uma dhiibto waxay u dhiibtaa shirkad tuuga ah oo black water oo kale ah oo maraakiib leh oo hindiya ku jidho oo egypt ku jidho oo norway ku jidho oo mataqaanaa maxay tahay dowladahaas adduunka ah oo dhan ku jiraan oo mataqaanaa carruurta qalata waa carruurtay qalataa hindiyaa ku jidha egypt baa ku jidha norway baa ku jidha awal waxaa ku jiray yaman baa ku jidhay yaman waa tii balaayadu ku habsato ilaahay u soo diray sacuudiga iyo imaaraat maxaa kuu soo haray marka intaa oo dowladood oo reer galbeedaha ku jira waa dad burcada oo waddan walba ka imaaday oo shirka ah oo ku shirkoobay carruurta soomaaliya in laga daldasho yaman baa nala qabta libiya nala qabta suudaan baa nala qabta iyo innaga ciraaq baa nala qabta suuriya nala qabta waa waddamadii burburay oo dhan ya habaar alla kuridkii waddamaduu burburiyey maxay ahayd magaciisa george w war magaciisa ii sheega george w muxuu ahaa kii maraykan haystay oo hadda ka horreeyey obama waddamadu cagta marshay oo dhan oo burburiyey kaliyihiiba ilaa waagii baa la daldalahayay ilaa waagaad ogeydeen baa la daldalahayay ilaa haddaa la daldalahaya waxa weeye marka waxaan la hadlayaa anugu shacabka naagtii aad ogeydeen ee intaas soomaali muxuu ahaye carruurta daldalaysay ee hana abukar waa la sii daayey CID-daa xidhay qabyaalad baa lagu sii daayey qabyaalad haddana waxaa maanta la ileeyaho taleefon xamar weyne la iga soo diray 80,000 baa la siiyey nimankii haystay oo dollar shirkaddii ay u shaqaynaysay oo carruurta u daldalaysay markii hore inta qabyaalad la ii sheegayoo aan wareeray baa haddana waxaa la yidhi shirkaddii ay u shaqaynayso carruurta u xadaysay ayaa 80,000 siisay CID-dii ay ku xirayd nimankii xukumay ee ku xeeraa CID-daas war qof dhan hal keli oo qof leeyahay ma 80,000 baa ka ayma badan
markay 170 baa lagu gadaa halkii kelli aya cunugana maxaa ku jira 2 kelli iyo wadne iyo beer iyo organa ciidaa ka badan maca xaniyaha waa lala baxaa gabdhahana binkaa lagala baxayo lagu koriyaa meel daawo leh baa lagu koriyaa haddaba hadday 6 jir tahay ama 4 jir ama 3 jir meeshaasaa lagu korinayaa meeqaankiisa markuu gaaro oo u koro oo sidii qofka qaangaara u koro yaa hadhow naag la gelinaya minkeedii hallaabay war isbeer baarti miyaa carruurteen dawladdu wax kasta oo ay hayso faraha ha ka qaado xukunkeeda hadday rabto inay soo noqoto dawladdu hadday rabto inay soo noqoto waxaa ku jira niman baarlamaaniya waxaa ku jira niman wasiirre ah 2 naagood oo wasiirre ah ku jiro midda caafimaadka tahay warkiinnii warbixintiinni waa la sheegay ballan baan qaaday kii aan maqlo oo xukuumad noo haya oo mas-uul ah oo aan ka maqlo sir yara ka qabto inaan inta ka sii daayo war anigu australiyan baan ahay idinma soo socdo haaweydu dhash dadkaygaan idinka ceshanay balaaya madaxyada idinka goysay waxaad madaxutiin male beled madaxa ha idinka jadho waxaad madaxutiin male coronavirus allah ku sallado dadka dhibahaya dadka dilahaya dadka kalyaha la baxaya iyo organka la baxaya dadka dahabka yaga guranaya ilaahay coronavirus ku seexiyo baabaha allah uga dhigo ilaa kansarka waaba la waarayaayo miduu ku haynaya coronavirus waa kow iyo kardam waa dadka qalanaya maxay tahay sababta loo sii daayaa qof kasta oo lagu qabto isagoo carruur xaday gacantiisa lagu qabtay shaahid 2 wiilo afkooya waa la sii daayey hana abuukar waa la sii daayey tii shalay gabadhu la diridhay oo gabadheeda ka dhigatay oo gacanta ay ka jabisay waa la sii daayey yaa haysta isteeshimada iyo CID-da madaxweynuhu hoose u fiiriya shacabkii dhammaaye yaa ku dooranaya haddii lagu doorto aad soo noqoto yaad u shaqaynaysaa maxamed cabdullaahi farmaajo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble carruurtii hoostinay ku dhammaatay maanta gobollada xamar baa ugu liidata xamar waa 5 qabo 5 sii daa naagtiiyo cunugii xambaarsan baa lagula dirirayaa oo inta la legdo laga qaadanaya cunugii surun walba waa in ciidanka la dhigaa surun walba nimanka xildhibaanada ha soo daaya dadka qasha dadka laga xiro xildhibaanada soo daaya xildhibaanna waa la idin ogaaday waa fashilanteen ilaa intee sanaa guranaysay intaa baarlamaanka fadhideen keliyaha dadka guranaysay maantaa fashilanteen aaway carruur baa hadhay magaalo kasta carruurtii waa ka dhammaatay waa yeelba u badan qaar shabaab ka haystay qaar tarhiibay qaar burcad badeed lagu dhameeyey qaar ka haajiray waddanko iskaba haajiray oo carrada ilaahay ku dhintay waa yeelba u badan kuwii hadda soo kacayoo dhaldhashay oo gruubkaa baaba'ay ku xigayna haddaa la qalahayaa yaa dawladda xukumaysaa yaa dowlad goboleedka xukumaysaa yaa mataqaanaa madaxweynuhu xukumayaa madaxweyne madaxa kor u qaad madaxweyne shacabkii hoostaadaa lagu dhameeye maxamed cabdullaahi farmaajo ciidanka bedel sidaas shalay kii danab u bedeshay ismaaciil hebel aad u bedeshay maalin kulligood u bedel waa wada taraytar 3 sano oo waddanka aad haysatay qaa'imin baad la shaqaynaysa qaa'imin hoostaada dadkii lagu dhammaystay madaxweyne farmaajo carruurtii dhammaataya caymi 3 bilood baa la yidhi 4 bilood 80 kun oo Soomaaliya oo gobollada laga keenay xamar baa lagu qalay magaalada xamar baa lagu qalay kow kii jiran oo kaliyihiisa iyo ay xanuun ka helaan hooyadii waxaa la leeyahay $500 ilaa habartu waa taqaan meesha cunuga lagu haysto mana tegi kadho cunugii baa la qalayaa ma tegi kadho dawlad uma carari kadho ciidan ma haysato dawlad ma haysato maxkamad ma haysato
meelay aadama taqaan dacaskii baa ka dhammaada oo dhexda ka daloola say inta jaha wareedhay marna meeshuu ku xiran yaha u tegaysay marna gurigii u tegaysay marna meeshuu ku xiran yaha u tegaysay marna guriga kabahoodii dhexday hooyooyinkii ka dalooshaday ilmadii say u ooyahayana tawaaddii awrta qooqan baa indhahoodii noqdeen tawaad buu leeyahay ratiga qooqan halkaasuu tawaad ku leeyihi indhahoodii halkaa ilmadii waxay ka dhigtay tawaad awrta qooqan yaa muslimiin yaa muslimiin yaa arxamu raaximiin ilaahu ummadayda u naxariiso ilaahu ummadayda soo gaar ilaahu ummadayda hambee ilaahu cadowga ka qabo xamar bay u dhooban yihiin magaalo walba gaalkacya 2 guri bay ku leeyihiin 2 guri garowga 2 guri bay ku leeyihiin boosaasa 2 guri bay ku leeyihiin kulli waa naloo soo sheega waa haynaa magaalada maxaan ku idhaahdayay iikeen dhuusamareeb waxay ku bilaabatay 2018kii ka hor waa roonay in laga xado oo meel kaloo lagu soo qala maahane ayada laguma qalay guri dhan oo firijiyo iyo qalab iyo dhakhaatiiru taallo baa hadda 2018kii dhuusamareeb laga furay awal carrada kaloo dhan 10 sanay ka socdeen iyo 13 sano gobollada kaloo dhan dhuusamareeb hadda dhow waa laga fura waayo waxaa ka celinayey oo lagula dhici waayey sunna wa jameeca haystay maalintii la cayriyey bay shalamada soo dhigteen hal guri baa ka furan magaalada dhuusamareeb hal guri baa ka furan carruurtaa lagu aruuriyaa waa la qaadaa wixii laga gaari waayana dhakhtar baa jooga waa qalaa firiij baa lagu guraa qaari daboolan baa lagu qaadayo xamar baa loo gudbiyaa ilaahu ma idiin sheega shacab oo markhaati ahaada shacabka waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed waayo waxaa ku lug leh dadka mid ah dowladda oo xildhibaana leh oo saraakiil leh oo wasiira leh oo mataqaana shaqaale caadi ah oo shaqaale hoose ah leh oo hawshaas waxaa la adeegsadaa ciyaalka darbijiifyada ah ciyaalka homelesska ah ciyaalka barakacayaasha waa dhalinyaro ciyaal maaha waa dhalinyaro dadka dhalinyarada ah ee meeqaanka aan haysan ee iskuulka aan dhigan ee sagsaagu ku dhacay dowlad la-aantu ku dhacday oo dhaqaale la-aantu ku dhacday oo dadka fuquraaga ah oo barakacayaasha oo xoolihii baadiye ku dhaafeen dhaleen oo calalada iyo qoryaha ku nool ciyaalkaasaa la isticmaalaya waayo waa baahan yihiin nin baahanageeda kama waabto dab xataa kama waabto ciyaalkaasaa la isticmaalayaa ciyaalkaasaa laleeyahay $500 qaata $200 qaata 150 qaata cunugaad aragtaan soo dafa nag ciyaalkii waa la dhameeyey qaar baa iyagoo nool jawaano lagu gura oo xamar weyne lagu geeyey cabdicasiis waxaa marka ku jira xawaalado business kuwa ah nimanka businesska ah xawaaladaha niman kale dahabshiil iyo hormood waa ku jiraan labadaasaa la iisoo magacaaba waa ku jiraan ma garatee saasaa la yiri waxaa laga yiri xamar gudihiisaa la iiga soo sheegay xamar weyne iyo waaberi iyo village soomaali meeshii oo iikeen hodan yaa la iiga soo sheegay waxa weeye dhibaatada waa sax sawiraan leeyahay hadda kabacdi iisoo dira afka kaliyaha qoraal kaliyaha iisoo dirinine sawiro iisoo dira aan halkaa dadka markhaatigii ka tuso baan hadda kabacdi leeyahay laakiin hadda qoraal baa la iisoo diray qoraalkii baan idiin akhrinahayaa dadyaho aniga laftirkaygu haddeed qof bala ka dhacday oo technologyga taqaano oo waxwaa aqaan oo akhriska iyo qoraalka iyo waa ku fiicina laakiin technologyda baa la iga badiyaa technologyda waa la iga badiyaa marka hadda step by step baan hadda xoogaa u soo fiicnaanayaa waxaan doonayaa hadda kabacdi picturekii oo kiyaara sida hadda boodhari iyo wiilasha qaarkood inaan meesha soo dhigo oo indhihiina aad ku aragtaan laakiin hadda qoraalkii baan idiin akrinahaya war ma ay garateen soomaali weyney yaaba ku jira 2 qof kaliya ku jira anaaba u jeeda haddana laptopka lagama arko qof inta kuugu jira lagama arko meel bay taabtaan oo laga arkaa saa u soo saarda saa anu ma aqaan meelaan taabto runtaa sheega weligay been ma sheegin xataa anigu been iskama sheego ma faano
waxaan ahayn iskama dhigo waxba ma ogi juhulaa baana ilaahay baa ile intaan baaban waxaan dadka rooni iyo karti iyo geesinimo baaban intaan wax idinku soo gaarsiinayo oo leefka soo gelayo baaban balaayo ku dhiga abraha facaya ma soo galaan hoog madow yahan toolay uwan waa badow guryaha iska dhex fadhiyaan baraf bay la kaduudaan okay marka waxa weeye waa meesha tan marka waa shirkad gabowday qolo aan ku jirin ama dowlad goboleed ha joogaan maamul goboleed ama business ha ahaada ama isima ha ahaada ama culummo ha ahaada qolo aan ku jirin malaha culummadu kuma wada jidho isimadu kuma wada jiraan ciidamadu kuma wada jiraan shaqaaluhu kuma wada jiraan madaxdu kuma wada jidho waa dad ka mid ah dowladda waayo dowladda soomaaliya afka puntland iyo afka kismaayo iyo afka baydhabo iyo afka maxaan ku idhaahdaa cadale iyadaa xukunta dowlad weeye waa hal dowlad laba dowladood ma lihin dowladda farqihii ka baxay waaye marka dowladda iyo wixii hoos yimaada oo dowlad goboleedya ah waa maamul gobol waaye waa maaya iyo inta la shaqaysa dowladdaa xukunto dowladday hoos yimaadaan dowlad baan leenaha marka somalilan oo been ku go'day oo xaqaaqiga markii la eego oo runta la eego oo dastuurka la eego hoos imaanaysa dowladda federaalka oo wax go'i karaba aan ahayn oo hadda bilaash baa looga reebahayaa dowladday hoos timaada dowladdaasaa xukunta dastuurka u yaal soomaaliya waxay ka bixi ka dhana malaha waxay goosan ka dhana malaha niman burcada oo sida kandani oo kale ah oo burcada iyo axmed madoobe baa ku haya 30 sanaan go'onay 30 sanaan go'on maxamed cabdullaahi farmaajo hadda hadduu soo noqdo waa go'onay dambe afkiina laga maqli maayo hadduuse soo go'anna ahaada waad go'deena sii socda wixii idin ayidahaya iyo wixii idin aqoonsanhaya ayaga u taalla laakiin waxaa ballan idinka qaada maxamed cabdullaahi farmaajo hadduu soo noqdo somalilan waa go'day dambe bushimihiidna inaan laga maqlayn by force barya ma aha by force haniyaa ba'ay 30,000 oo gorgor iyo harab cadaan la idinku soo kicina oo miyaa iska celin kartaa maamul goboleed xunaa tiino hadda maxay taboorama idin lama socoto laascaana idin lama socoto bahalkan caynoo dhan idin lama socoto sanaag idin lama socdo ma burca iyo hargeysiya berbera 30,000 oo nin iska celin karta oo gorgora no way haba sheeginba taas puntland jubbaland somaliland sida hadda gada ciidanka loogu daabulaa la idinku soo daabulaa ha soo noqdo ina farmaajo ilaahayna waxaan weydiistay inuu soo noqdo rabbi taasaan weydiistay okay hadal badan haan ma buuxsho qisadaydu waxay ahayd puntland dhibaatada iyo dhabarjabka iyo baabaa ku dhacay oy maanta halis ugu jirdho gaajo in dadkeeda u baaba'o iyo carruurta la qalanahayo oo xamar ugu daran tahay oo warshadihii xamar ka furan yihiin oon dowladdayadii ka warqabin oo ciidankii burcad yahay oo maxaa qolo walba ku jidho madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ka maqan iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka wasiirka maaliyadda wasiirka arrimaha dibadda afartaas nin guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad waa ku jiraa mahad cawad waa ku jiraa xildhibaanada tuugta ah buu la safeeyo lacagta guryahooda loogu keenaa qofkii la xidhana xildhibaanada soo daaya iyo wasiirada war maxaa idiin baxay war may garateen soomaali dhagalaay may garateen soomaali isnacebay may garateen iyadu isku xoog badanay may garateen haa ayadaa is aragta ilaa 800 miyaa la yidhi mise 80 qof oo reer kenya yaa keliyaha dadka ka gata xamar gudaheeda fadhiya xamar gudaheeda 80 qolada tan etoobiyana waa ka buuxaanba iyaguna waa intoo kale dadka keliyaha gobollada laga keenahayo oromadaa keenta oromada iyo etoobiyaanka iyo axmaarada iyo wixii inoo soo qaxoo dhan ilaa iyo waqooyi yaa laga soo daldalaa ilaa iyo mataqaana puntland ilaa gobollada dhexe etoobiyaan baa ka soo gura ilaa xamar iyo koonfur oo dhanna waxaa ka soo guri jiray kenyaanku yay wataan kuwa soomaaliya
سوقبو أيجا لو ديبا سوقبو أيجا لو ديبا سوقبو أيجا لو ديبا من ذا لو ديبا سومالكم وسوقب تبرك أسقف سومالك والله آد بان أرنتا وغطيرا يسنهاي آد بان أرنتا وغحمهاي آد بان دولة يدا وحن ويدي سنة هي مدحوينها يجي رئيس الوزراء هي قدوميها برلمانك يكو حيجانك يا كله فينش واحد ما تقول يسال عجوز يا عمر فينش شيكو أهرتا إسقو شيكو وأجي هبا ما تشلو لاي بكتير لاي إلى حبيك وين أبي كتا وأنا نك أقوم مسؤوليات علوس دولة هذا ما تعرفين نك أقوم مسؤوليات علوس وايو واحد ما يروح يسوي هو شيء ماذا كان سومالي لاي كان بدلان كان قلمدو كان سومالي كوفر كان شبلاين كان هيرشابيل كل يسوي هو شيء ماذا عمر فينش ما هو أوجا لوجا شرعي الدولة ده ما يقان ما هو أوجا إنتاس أو معمول قبلات إنه يسوي سيتي كونسل وياهي ويهوسي مادان ما أوجا شرعي يجي هران أنا كو صعدا أنا كو ما صعدا فدرال أفكي قال كمان مقالها ديمقراطية وبعد كمان مقالها إسلام شغلكم اللي أنا كو فدرال برنامج كا شرعي يجي هران الدستور كي يجي هران لحدا كي عندي قرني أنت معايا كنت قبل هذا عمر فينش ما يهوسي معنا دولة الدحاء باب اللي يراه ذا دولة الدحاء بل أورنجر دولة هوسة حتى يقبحيان ما قمت بعد توجد وعرض خمسطي دولة صرع هي دولة هوسة دولة هوسة وحلو ليها قدوميها قبل كبنادر باوحوا حكومة سديد هي طبعا كدقم قبل أو كله ما يرضوا ذو حكومة أو يهوسي مانشري هذا لكن ولا بدلوا سديد هي طبعا دولة دوت بالله سديد هي طبعا علم سديد هي طبعا معايير سديد هي طبعا جنرال سديد هي طبعا متقنا هوك يبا waxaan silsiladan oo caruurta iyo dhalinyaradii hadda dadkii waaweynaa baa loo soo dhigtay caruurtii waa dhammaataan u malay dadkii waaweynaa baa loo soo dhigtay waxa waaye soomaaliyeed waxaa dowladda ka codsanaya madaxweynahayaga ra'iisul wasaarahayaga gudoomiyaha baarlamaanka waxaan ka codsanayaa janan ma jiro janan odawaabaa ugu dhow jananka booliska iyo jananka asluubtu waa tuugo waa iyaga waxa dadka sii daynaya asluubta laftirkeeda baa fidmada way ku jirtaa waxaa ku jirta nisa nabad sugidda baaba kowka ah horta markii ciidan la dhaho nabad sugiddaa kowka ah hay-adda nisa ee nabad sugidda nimanka haysta markaan ka reebo Fahad Yaasiin inta ka hooseysa dadka qashabay ka mid tahay dadka qashay ka warbixintu waxay ugu timid Fahad Yaasiin hab maqalo oo suspect ha ahaado laakiin isagu gacanta kula ma jiro laakiin inta ka hooseysa gacanta kula jirta war anigu been sheegmayo wixii la ii sheega xamarna ma tegin Soomaaliyana 30 sano ma arag madaxweynaha iyo dowladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa dadkii hoostiina ku baaba'ay waxaad xukumaysaan anigu ma garanayo hoos inaad u fiirisaan madaxda tuugta in la bedelo Cumar Finish la bedelo gobolada degmooyinka oo dhan la bedelo kan asluubta la bedelo kan booliska la bedelo nisa ninka Fahad Yaasiin ku xiga waa in la bedela waa tuug waa la ogyahay caruurtu wax ka gataa kaliya wax ka gataa tuug walba markii la soo qabtaa isaga sii daayo lacag bay qaataan lacag shirkadda dadka qalata baa laaluush siisa waa la sii daaya qof walba hal habeen ma xiraado qofkiisa la qashay ama lagu qabtay ama lala tago la qashay bay xiraan lacag 5,000 3,000 4,000 2,000 waa ku ganaaxaan marka dowladda waxaan leeyahay dadka la qalahayo si degdega wax uga qabat si degdegana ha loo bedelo dadkan maafiyada noqday oo dollarka caadiga ah reer galbeedku ku soo shubahayo South Africa la geeya Australia la keena Scandinavia ko dhan baa la geeya America la geeya North America la geeya Arabo dhan baa la geeya Italy baa la geeya London baa la geeya waxa u sabalay gareynaya caruurta yada kaliyahoodii waaye caruurtii future-ka boqolkiiba 30 baa haray 70 waa la qaat farmaajo 30 ka badbaadi Roble 30 ka badbaadi
محمد عبد الرحمن مرسل صدن كبدبادي مودي صدن كبدبادي فهد ياسين صدن كبدبادي انت كلام هينا انت سما دحدي كهدي waxa weeye marka aawa intaasaan ugu talagalay inaan meesha ka bararaqleeyo waa isayn waayo damiirkii iyo dhiiggii baa ii diiday meediyada waxa aan ka arkahayo carruurta yaryarka ina sintiga ah la qalanahayo carruurtii future-kayaga inay tahay waddanka in la rabo in loo banneeyo ummad kale markii carruurta haddii la dhammeeyo yaa waddanku waa baylah yaa difaacaya madaxweynaha waxaan ka codsanayaa oo ra'iisul wasaaraha waxaan ka codsanayaa wiilasha ku xiran sacuudi carabiya iyo yaman iyo maxaan ku iraahdaa meeshii kale xaggee ahayd dhowr meelood wiilasha iyo libiya si degdega inaad ciidan war doorashada war gacanna doorashada ku sameeya madaxda yadoy gacanna dadkii ku badbaadiya dadkii hoostiinna ku baaba'ay qaarna jeelal buu ku jiraa qaarna xamar iyo tuulooyinkii iyo magaalooyinkii iyo gobolladii oo dhan baa laga soo daldalahayaa labada gacmood midna ku wooda midna waddanka ku badbaadiya midna dagaalka ku gala dagaalka oo ku difaaca kenya idinma soo socotay axmed madoobe iyo raggii burcadkaayo uu watay weeye kenya waa ka baxday dagaalkii xuduudeennina waa ka durugtay halkaa shidda kama jidho afartan wiil ciidan ku filan waad u geyseen shidda ma jidho marka halkaa xaggaa shidda kama jidho rag baa rag ag dhoobteen ma garanaysaa dadka la qalanayana badbaadiya dadka jeelasha ku xiranna soo daayo roblaan la hadlaya roblow dadka soo daa waxa weeye marka intaasaan uga baxayaa waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ilaahay waxaan ka baryaynaa waddankeenna inuu nabad nooga dhigo aamiin ilaahay waxaan ka baryaynaa masiibada inuu naga dulqaado aamiin ilaahay waxaan ka baryaynaa madaxdayada inuu qalbigooda xaqa ku rogo oo xaqa tuso oo cadaaladda tuso oo bini'aadanimada tuso oo ilaahay ay ka cabsadaan oo dadkan alle uga baqaan baan rabbi subxaanahu watacaala weydiisanaya aamiin yaa rabbi alcaalamiin ilaahay waxaan ka baryayaa inuu dadkayga hanuuniyo sixir baa haya war waa sixiran tihiin war quraan isi saara war wadaadada shifa u taga war maxaan ku idhaahdayay sida isu dhaama war sixir yuhuud baa idin haya sixir afrika ma aha sixir bahalkii ma aha soomaali ma aha sixir afrikaan ma aha sixir yuhuud baa laydinku asaruuray ka gees waa sixiran tahay soomaalidu kabisa noocaan ma ahaan jirin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته